العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalahii muslimiinta meel kastoo dunida ku joogtiin waxaan idin leenahay kusoo dhowaada barnaamijkeenii oo ahaa tixanaha barashada ducooyinka ee laga soo wariyey nabi moxamed sallallahu calayhi wasalam. waxaan rajaynayaa inaad nafsadiina aad bartaan, ehelkiina aad bartaan iyo caruurtiinaba. رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. ma doonaysaa in caruurtaadii il aykan kaaga dhicin? ma doonaysaa in caruurtaadii ilaahay subxaana wa tacaala uu kaaga ilaaliyo isha bini-aadinka iyo xasidka iyo shayaadiinta iyo sixirka iyo jinka? haddaba hadday jawaabtaadu haa tahay, ku akhri ducadan ilmahaaga insha allahu tacaala. acuudu bikalimaati illaahi taamaat min kulli shaytaanin wahaama wa min kulli caynin laama. acuudu bikalimaati illaahi taamaat min kulli shaytaanin wahaama wa min kulli caynin laama. acuudu بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. دعاداس كو أخري المهاجة أذينا نفسداد كو أخري إن شاء الله تعالى إيش وجرتا وحق نبي نوشجي يسن كو أسيب كجاشامو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.